balina dugsi sare ka soo baxay waxa tiraahdan war leydka xidhiile leydka uu soo qaatay ilayska wuxuu soo dhig 4 sano ilaa iyo uuladii ilayska uu dhiganay war baleydkan xidhde waynu xidhaa qasabada xidh waynu xidhaa reerka uu sameeyay kayd biyo waynu u sameeyaa hadii kala de aqoontii ma taariikh ahaan baynu aqoonta u qaadanayna waar waa la adeegsadaa reer Yurub way adeegsadaan shabaanku waa adeegsadaa waa adeegso saacadahan yar yar aynu ku cayaarniyo moobiladan bal iminka arday dugsi sare oo haduu seerkiyudki moobilka haduu xumaado wuxuu geenayaa mid qarafaadhigo aan weligiis iskuul gelin markaas uu saa u qoriyeenaya leeyahay warniyo waanu taagwaayay orodoo iga qaado waar maxaa jaamacad buu ka soo baxay moobil lama samayn karo aqoonta waa la adeegsadaa waar berigii hore hararkan la barayo inanta iyo muxuu ahay sida xoolaha loo dhaqay la barayo iyo aqal Soomaaliga sida loo dhisay iyo waxaanu agaba sida loo sameeyo de waa la isticmaalayo inanta waa la baray lama soo bari jirin aqoon aanay guriga ku intifaacsanayn lama bari jirin dhammaan waxa la barayo guriga looga baahnayo birita intifaacsanaysi wiilkana aqoonta la barayo sidaas uu intifaacsanay sida xididka loola dhaqmo sida reerka loo dhaqo sida tolka loola dhaqmo sida garta loo naqsado sida loo wax walba waxa la baray waa aqoonta aynu maanta baranayno maxaynu iskuulada 12 sano iyo 4 sano jaamacada isku dar 16 sanadood qarashka ku baxayay ee aanu leeyahay aqal gelin karayn socon mayso waa inaynu intifaacsanaa aqoonta waa inaynu adeegsanaa aqoon qofka adeegsada iska leh de maxay u barayso orada waa yahay xirfad yar oo kala baro muxuu ahaayay geerashkaaga markiiba gaariga uu sameeyay 2 sanadood markuu bartay baltan 16 la baranayo dabadna xafiisun buu fadhiyaa oo hadii xafiis la waayo inuu wax isticmaalo la doonayo waari hale aqoonta aynu waxa inoo balana dawladnimadii waad haysaan reer Gedo in la idin ka bartaa loo baahan yahay sida Somaliland in looga barto dawladnimada loo dadka halkan joogaana waa inay ka bartaan Gedo dawladnimada bal hadee iyo sida cilmiga loo raacdo in laga barto walaalka wanaaga waa laga daydaa laakiin lama xaasido waa laga daydaa wanaaga ummad yar iyo weyn ba dawladnimadu ka muuqato dawladnimadu waa nabadgeliyada iyo xurmada iyo istixgelinta iyo inaan lagugu dhex nabad galo oo cid kula joogta ay nabad gasho oo aanay walwalin oo isoodan hantida yar waa laga qaadaya meelad gor walba walwala isleedahay goorma intana laga furanaya de dawladnimo ma jirto dawladnimada la sheegaya waa shacabka inaad ku dhex noolaan karto oo waa shacab dawladda inaad haysato ee maaha ciidamo la isku wareejiyo maaha dawladnimadu waa ummad shacaba oo dawladnimo leh oo lagu dhex noolaan karo oo gobonnimo leh oo lagu guursan karo oo laga guursan karo oo la dhex degi karo oo la ganacsan karo oo lagu noolaan karo la isku aamini karo dawladnimadu waa taas ee maaha hadii ciidamo meesha joogayo bari haday tagaan dabadeedna la waayo dawladnimadii ma waad maadsantiin aad baan ugu faraxsanahay muxuu ahaayay waxbarashada la idin furayna maktabada la idin furayna buugga u horeeya anigu aan ku soo deeqaya wuxuu noqonayaa qisadii abiisaan islaha ma cilmi barbar islaha ma keenaya halkani taariikh way leedahay dhaqan bay leedahay buugaag shisheeye uu la akhri maayo dhaqankeena iyo buugaagteena iyo taariikhdeena iyo suugaanteena inuu baahanayo dhaqamadeena wanaagsanaa iyo taariikhdeena suuban ayaynu u baahanahay dabadeedna waan ku dardaaraya in la helo shalfis dhan qayb dhan oo ah gobolka Gedo taariikhihiisii sheekooyinkiisii ka dhacay qisaskii ka awow qisooyinkii dhacay in la helo oo ay ku qoran yihiin waa taariikh weeyaan ummadda taariikhdeedii iyo raadkeedii weeyaan dadkani meel ma kala jiray dhamaantii waa yar buugga futuuxul xabash